wuxuu ku sheegayaa in marka halkaas ay baaba ka jirto codadka in la wadaagaya marka waa group ogaadeen leeyahay kuma qasaarin groupkaas gabar baa igu jirta khayr Allah siiyo waa isjecelnahay gabadhaas laakiin anu ninkii hawiye waa ka caqli badna nin hawiye waa gabar Saleebana baa jeclaa nin saacada baa jeclaatay gabar Saleebana gabadh caarka cunta ku tiri jacaylkayga maxaad macna ku qancaysaa markaasuu yaa daartay inaan jacaylkayga aamino adoo xaar cunaya ii soo duub ku yirmo anu markay intaan xoogaa telefoon ka qaban waayaan ku yirnaa naga tago xatiri inaan ku jeclaa kugu cadeynaya xogta reerkan ku siinaya gruubyada xogtooda ku keenaya xogtii baan markii la wadaagaya xogaha siyaasigana waa haya xogii shacabkana waa haya qeyrada ka yeeraysa bismillah walcodka hala dhageysto walaalo waa run oo imika meeshu maalan waa qabale ama waa degmo adu waa meel waxa ku dhow xuduudii Soomaaliya u muuqata imika wajaalo oo kale doox yar ama laag yar yaa dhaxmarta laagta qarka wixii ka soo ah waa Itoobiya qarka laagta wixii ka ana waa Soomaaliya oo waa nimankii Soomaaliland la baxay ee Hargeysa wiinti marka waxa weeyaan halkan oo kala doorashada ka socota way iska soo wada talaabayaan oo iska codeynayaan waana reehbil maxaa laga garan waana isaaq imika waxa halkan degan dhankan Itoobiya iyo dhanka Soomaaliya waxa degan labadaba waa isaaq isaaq isadku kala garan santuuqiyad geysay waxa tiri magaaladii waa example waa tusaale waxaan idin sheegayo wajaalaban yaan aftika qaadi wajaalada Itoobiya aftika qaadi baa tiri maadan samaynin rag ka sareeya oo ka cilmi badan baa meesha jooga oo inay fashilmin doonaya arinta ayada ah adu arinta waa tahay waxaad xidhaysaa aqal walba aroorti baad ku waabarisan aqal walba qofka aqalka ka soo baxay ma ahaan aroorti waxaad xidhay horta laagta dhan baad ciidan dhigood xidhi laakiin arin ka sareyso oo ilaa heer federal iyo Oromiya ay wada tahay iyo log miya galay raalaha iyo ummadan kale ee Soomaalida kale ay hoos ahaan iskala shaqeynayaan waxa santuuqyada baa la geeyay oo ciidan baa la dhigi maayo santuuqyada baa la geeyay wax alla waxa Soomaaliya wajaalada Soomaaliya oo dhan halkan aad ugu moogtay iyo santuuq yaalay way soo wada galayaan way wada ku wada ridayaan muxuu yahay dadkan waa wada maxay dadku sharci ma leh waa mustaqbalkii bay iska wada haystaan mustaqbalka kale hadad weydiis mustaqbalka weydiin ma sida dadku xaafadahan oo baa lagu leeyahay mustaqbalka ma wada haystaan dadku boqolkiiba waxa haysta baa lagu leeyahay 10 qof dadka ma codayaan xaq bay u leeyihiin mustaqbalka inoo dambeysay horta dadku ha codayaan aqaladan oo dhan bay ka soo baxeen baa lagu leeyahay marka taas waa arin dhacaysa waana saas oo kale dhulka xuduudaha ee lagu sheegay labadii magaalo ay saaran tii Soomaaliya oo dhankaas iyo tii kilalkeena oo dhankana marka hadii kulli dawladii inaga madaxweynaha inaga wasaaradii inaga u badan ciidamadii inaga u badan abooda waseen hadii ay wax ka qaban waayaan oo arinta run noqoto hadii dad kale oo walaalkeen uu xamaasad ay jirno inagu dhax tuurayana laga joogsan leena marka asagana soo cadeeyay dalku joogiyo wuxuu yahay taasaan wuxuu ogaan codadku waa badan yihiin qabiilada kale oo loo tashanayo hartiga iyo qabiilada xuduudada degan iyo ogaadeen in xuduudaha laga degan yahay ayaga si cadeyn doona codadku waa badan yihiin Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan qaadnay walaal fikradaada wanaagsan ee soo jeedisay waa soo sheegtay oo waxa hadda laga dagaalamayo waxa hadda dalka kululaha Soomaali ma ahan Soomaali waxa weey wax la dagaalamayo magaca ogaadeen ma dagaalama meesha ka socda waxa la rabaa in la dhawa majority laga dhigo Soomaalida wax ma jaan waxa ka ah ogaadeen laga dhigo Soomaalida kala loo badiyo in yar oo tuulo yar si loo inta marka la isku soo tarko aan la dhawo ogaadeen ku yar ma waxa kama aan la dhawo wax lagu dagaalamayo magaca ogaadeenka ogaadeen lagu dagaalamayo in meesha lagu tirtiro waxa lagu hortay karaa ama wax laga qaban karaa maadaama maamulka inuu aanayno madaxda aan ka nahay wixii ciidanka inaga hadaan u badan oo wixii weyn waxa dhan baad inuu ogaadeen markaan aan ogaadeenno dadka soo galaya gaariga lagu dadal ee dhinaca kasta in amniga la sugo wixii la garan waayo in dagaal lagu furto meesha ka imaado lagu wadiyo in amniga saa lagu sugo oo isku turnaasho noocaas ah leeyahay oo isku tashan noocaas iyo koortag noocaas ah leeyahay yaan wax ka qaban karaa laakiin hadii la isku hurdo oo dadku ay sideen iska ahaadaan oo ogaadeen marka loo amaabsamo iska dhada ay sideen iska ahaadaan waxa ka sii laga soo galaad meesha ayaa ka noqonaysa majority waxa ka imaado noqonaysa
marka sida daraadeed baa rabaa in adigu madaxtinimada ama ma garanaysaa maamulka iyo magaca lagaga wareejiyo oo magac kale meesha loo bixiyo marka waa magacaas lagu dagaalamayaa laakiin waa dadka waddanka jooga ama dadka hogaaminaya ama maamulka ama siyaasiyiinta waxaas waa inay ka hortagaan oo waxaa hortag ay ku sameeyaan oo ayaga ka wada tashadaan oo dhalinyaradu arrinta ay sheegaan oo urur dhalinyaro la sameeyo oo kala kooban baa doonayo absamo ka kooban absamo urur ka kooban oo dhalinyaro oo noocaas la sameeyo hortag la sameeyo meel kasta iyo ciidan kasta oo meel jooga iyo dowladda iyo wax kastaba la wargeliyo sida amniga lagu soo hortag noocaas la sameeyo mooyaane haddii sidan iska ahaado way bidhici doontaaba soomaalida soo dardaraay markii hal inta loo soo tiriyo hebel deegaan gobolkaas deegaan adigu gobolka afgaar u leeyahay jira lagu dhigo marka saas lagaga badan marka gobolada la soo tiriyo gobol kastaba in yar oo dhaxdii lagu arko adu marka waxa lagu dhibaa labada gobol ama halka gobol baa gaar u leeyahay inta kala dadka dig yaa lagu dhihi waxana waa waxay orami iyo ninkanta bulshada ay leeyihiin iyo waxyaalaha ay wataan marka ninkana de oramada dhinaca ku wada dhinaca ku qalab ka wata marka wuxuu rabaa meesha inuu saa dadka faraha u bixiyo maadaama gudoomiye xisbi uu yahay marka waxaan leeyahay dadka meesha jooga waa inay arrinta hortag ku sameeyaan ayna ka tashadaan dhalinyaradu anagu maadaama waddanka aanu joogin anagu kalley hadda maadaama dhalinyaradu isbarashaada meesha la socotay waxaan ay nin hogaan oo raab gaab ah waxaana joogaa South Africa waxaad South Africa joogaan waxaan maleeyay baa qolku jira yar kale ku jira yarkina dawaa oo markii hore qolku wax la hadlay way ka baxay oo mar hore ka baxay oo isla joognay hadda waxa South Africa jooga anigu baa intaan garanayaa ka ku jira qolka marka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh baan salaamaya codkaasi waa codkii labaad weeye codkii saddexaad baa cayba ka taagan tahay haddana marka yaa ilaahay garanaya deegaanka annaga iskale waxa isugu soo orortay xuduudka xagga reer hebel baa ka geliya balba reer hebel hadduu xag ka soo geliyo hadda deegaan dhan bay sheegeen wajaala iyo dhanka isaaq iyo waxbay sheegeen bal samaroon iyo harti iyo gaadsan iyo deegaanada ay ku sheegaan ay dhaha iyaguna waa ka soo gelayaan baa arkayna haddii kuwaana meel ka soo galaan marka bal ogaadeen haddii dad meesha keentayo qaxoonti xeryooyin ka soo aruurisay deegaanka aad wax ku dooni mideeda kale waxaad ka cabanayaan oroma baalka wadatay turkobka waa heer federaal baa gacanta ku haysa macnaha waxaa ma kordhin kara heer federaal mar hadday gacanta ku hayso oroma wadatay iyo kana watay iyo gudoomiye xisbiga weeye hadda oromana wuu wataa ummadii kalena wuu wataa hadda magaca ogaadeen baa meesha la tirtiraya awalba idinkaa gurguuri jiray sirtiinni baad ka baqaysaa in maanta ummadda loo sameeyo reer biciidyahan iyo reer qalaf iyo nimankaas wardheer iyo gallaadi iyo booqdaga gaalkacyo business bay u aadaan halkaa waa ka soo xaroonayaan wajaale iyo halkaana ganacsi baa loo aadaya ilaahay deegaanka ma kala xirin ma fahan walba codka saddexaad baa intusiya warkaa inii dambeeya tirakoobka innagaa ku badsanayna waxa weeyaan waa gobolka waxaa loo yaqaanaa ogaadeen baa loo yaqaanaa marka ogaadeen si loo baabi'iyo oramada ka dambaysa buu codka walaalkeen sidaan fahmaynay aan u fahmay fahankayga yar iyo maskaxdayda yar ay isiisay inay magaranaysaa ogaadeen laga soo horjeedsado dhanka samaroonku inaga soo galaan samaroonka la buuxiyo samaroonkan Soomaaliya dega laga soo buuxiyo oo laga dhiga dad Etoobiyaana si meesha ayada ay u noqoto inay samaroon u badan yihiin dhanka ciise oo soo degaan in ciisihii ku Djibouti iyo kuwa meelo kale jooga lagu soo buuxiyo kuwa isaaqa qaybtii isaaqa ee Ethiopia ma ahana qaybtii isaaqa ee caadiga ah ee Soomaaliya ee Somaliland lagu soo shubo oo lagu soo buuxiyo si ma garanaysaa meesha ayada inay ogaadeen ay quwad ku lahayn loo tuso dhanka hartidii laga soo buuxiyo oo meesha la masaxo ogaadeen dhanka Soomaaliya hawihi lagu soo shubo iyo ma garanaysaa jareerti iyo nimanka raxweynti iyo oo sidaa lagu soo baabiyo dhanka shishe gaadsanti iyo gurrihi iyo raggii reer Kenya inay de gobolka inay lagu soo shubo oo ma garanaysaa lagu soo baabiyo iyo dagoodiga iyo ciddii intii Soomaaliya dhanka xagga Soomaaliya wixii jiray weeyaan wixii das Ethiopia joogay de gobolka ahaa gobolka ogaadeen ahaa ama gobolka kilalka Soomaalida ahaa wuu kula yahay walaalka waa dadka kale lagu xoojin ka dhigan wuxuu gaadsankii halkaa iyo gurrihii reer Kenya ahaa ba halkaa laga keeni xaggaa hartigii ma garanaysaa gawaari lagu soo raray xaggaasaa laga keeni hawiyihii iyo dagoodigii iyo raxaweyntii iyo jareertii iyo jarjarkii baa halkaa laga keeni waaya walbal gurre iyo gaadsan baa tiri xuduud baa laga keenaya haddii la yidhaha deegaanka dhanka oromada iyo xuduudkooduna dee gurre iyo gaadsan baaba degan haddii dhankan iyo dirdhaba xaggaan la yidhahdii oromadana ciise iyo reer baa degan haddii wajaala iyo xuduudka Somaliland la yiraahdana ama
gaashaamo iyo dhankaaba ka reer ama dhankan wajaalaba ka maray samaroon iyo isaaq baa degan war haddii doolla la aado oo halkaa iyo wardheer iyo gallaado iyo dhaadana waxaaba degan nimankaa hartiyada aad sheegtay oo dhan walba uga xiran bal ogaadeen dhankiiba wixiiba siisay dadkii wad u qaybisay xuduudihii iyo seerihii oo dhan u xirtay adigu qaabkeed wax ku doonaysaa gudaha markii loo dhaadhaco war jid waaqay war akishow war gari kombow war gabooyow war ummadii oo dhan baa degan war baydiis laa degan war waxaa degan nimanka la yidhaahdo haddii alla ku idmaayo nimankii mursado maxaa ah laisku oran jira magaci laisku oran jiro kore muxuu aha magaci kore karinlaha wiyaa degan war bal waayahay ogaadeen adigu intiiba qaybisayo xuduudyadii qaybisayo ummada siisay oo tiri xagga harti baa nooga imaanaya xagga isaaq baa ka imaanaya xagga bahalkii samaroob baa ka imaanaysa xagga gaadsan iyo guraa ka imaanaya xaggeed wax ku qaadan jirtay oo adigu lahayd marka laba gobol oo gudaha oo caloosha waa laba gobol xataa hal gobol oo buuxa oo aan ogaadeen lagu tarixin deegaanka ma ka jira waa 15% way ogaadeen maxay ku macaasheen marka waa tabtaa ay hadda iyagu ka sheekaynayaan ay ummadda leeyihiin waana lagu samaynayaa